معرض خيرات كبيرة حكومة الفدرال كصوماليا مدن عثمان لباح إبراهيم وحرق كجر مشروع البيوت كان لو دسي ayaa sheegay eedaha qaar ay si sax ah u adeegsan dhaqaalaha loogu talagalay dayarta Soomaaliyeed oo si wanaagsan ka mahadnaqay ceelkan wadadan ay seedad jireen hadda ay ku socoto waxa way wada aad u wanaagsan oo lagu xaqiijinayo in lacagtii doolarska loogu timid oo ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay si dhab ah meeshii la ray loo geliyay maamulka ceelkan ayaa lagu wareejiyay shirkad maxalli ah oo gacanta ku hayn doonta sida uu markale sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda si ay u ogaato ay u kontrolsho markasta sidii loogu talagalay biyaha ma loo qaybiyaa dadka ma u gaara wax yaroo service ah yar lacag yar in dadka laga qaado oo aan la fahmaynin kaba soo qaad afartii jiirkaan oo 20 qaadkan in hal kun shilin laga iibiyo dadka qofkana ma fahmi kara eelkan wax waay wixii oo maaragtay uu ku socon lahaa مسؤولين هيئة بدبادة دلانك ayaa sheegay in ceel kale ay ka qodi doonaan isla degmada Daynila si lamida degmooyinka kale dalka oo ay hay'adu ka howlgasho Cali Cabdiraxmaan Aadan warbaahinta qaranka Muqdisho wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galmudug ku qabatay wareegga labaad ee wadatashiga qorshaha sagaalaad ee horumarinta Okay. Very good. Very good. Marka kana yara dhigana marka sheer gareeya dhammaantiin waxaa la yaab leh oo aada la yaab leh oo marka qaarkood isweydiiya ma adigaa waalan base shacabkan iyo ummaddan baa waalan ceelka waxaa la yidhi waxaa ku baxay daan been iska dhowro ilaahu been naga ilaali 136,000 waxaa ku faa'iiday baa la yidhi 1,600 iyo something ilaa 1,700 qof waa qoysas aada u fara badan waay maasha allah wuxuu yidhi ninka wasiirka ahaa ee hadlayaan tusaayo wuxuu yidhi ceelka kan waa in laga qaadaa lacag dadka aanan la garan karin ma huma laakiin waxaa weeye ceelkan waxaa dowladda Jarmalka ayaa hay-ado u soo marsiisay NGO ah waxaa laga yaabaa ceelkan in lagu cunay lacag 5 milyan oo dollar haddiisan ka badnayn laakiin shacabkii waxaa gaaray 1,600 qof meelay biyo ka cabi karaan horta hore waa ilaahay mahadii berigii hore maba gaari jirinba لكن ما أنت هديك قرت وإلهي مهدي الحمد لله شكر الله بريو هوري 5 مليون 10 دولار كما قاري جنب ما أنت عيل بقول يصدر حدوسي أوكي مركز دب هذا أسوون نقولنا أنا أرمى بدن بكسر دواجي أو أحيد إن أنا سكوت شنو أنا سومان هان العقار شنو أيلا شاس لو كن أقوس ودبده كنول هدي $5 أرورسو أوكي هالكاس محاك قعد ورينا وانو الشاقي عبد الرزاق سودو صاحب ورينا وانو الشاقي الصومالي دا سيدي دابا حدي أي اسكو دوغناتو ريحة مركم حي دهان وحي راحدان قرانجي اسكو تكتي ملع جدا ملع ما تغنى ملع يا قرطة دوا مركا كلها بواجران ضد ير أو عناصر أو دنوه دا قاسك iska samaysanaya laakiin dadku ilaahay isku sii uma abuurin 4 haddii xumaato 5 haddii israacaan oo 4 xumaato hal baa laga yaabaa ummaddu inuu wax u qabto sida wiilkan maanta gaarsiiyey 100 gaarsiiyey
وإلهي مهدي والحمد لله كاسو كله سومالي بدو كجري دونا إن شاء الله. مركا السلام عليكم ورحمة الله سودو هذا دمانتين الشير قرية إبراهيم شورية تي في 24 that's my YouTube. مركا روحوها إبراهيم تي في 24 هذا waxaan ku daray Ibrahim Shuriye TV 24 halkaas YouTube-kayga ka fiirso wixii kale halkaa kala soco alxamdulilah shukrullah ilaahu adigaa mahaddaa leh aan kala faa'iidaysano waxyaalo badanna waa soo socdaan insha allah YouTube-ka soo gelin doona haddii ilaa yiraahdo si mar kasta oo la socotaan subscribe samee beelkana taabo wixii comment ah oo lagu khaldan yahayna soo qor ama aan ku saxsanahay soomaaliha israacdo waa in soomaalidu ay isku tashataa ayagoo isku tashataa anaan dad shisheeyaa ku tashanin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabadgelyo.